السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان مبارك. الحمد لله. طبعا كده حياة عاونة ودمانايا. إله نقبل أعماشا كوا إله بين كستنارتا كحرايو إله نقدره intaas kadib waxaan idin wadaa caleyntan aad u jeedaan. waxa waaye Soomaalida magacyo kala duwan u taqaanaa. kuwa waxay u yaqaanaan geed hindi, kuwana waxay dhahaan geed khadhaadh. Soomaaliya aad buu uga baxaa, xagga North Eastern, Mandera, Garissa, Wajir aad buu uga baxaa. Nairobi dan aan joogo laftarkeedu ka baxaa. marka geedkan caawa maxaan u soo qaatay saad u jeedinba. geedkan anfac badan ayuu leeyahay, anfaciisa lagama sheekeyn karo. laakiin muhiimadan caawa ka hadli rabo waxa waaye maadaama cudurkii caqabka ahaa dadkii aad u dhameeyay, especially Soomaalideena meel kastoon joogno, taxadarka iyo kala fogaanshaha distancega iyo maxaan ku dhahay qaabkii la rabay aanan u dhaqmaynin. على الأقل بل إن أنا وجوري نجونا أن وحيالا نوعا إنتان استعمالنا أن دلالنا. أرتوحي كو قرن كون سنو كوي عليري وحيلا كو قرو كو قري هدو لها كو قري نعذر كان كو دعا كوفي 19 وكو دعون. لكن إلها وحينا دهي تحدرا وحلو باهي تحدر مركانا نجا تحدرنا تحدر كاس إلها وحبضان أيون وغفل ضينايا وحبضان إلهي ونوغا حجابيا سيدا إنا إله تلا صارنو أدكو أرورتينا أدكارو صباحي أدكارو مساينا نخرصنو إنا إله آذو مغنقلنو وياهي جيد كمركا وحو ترى مهمة هادا كهالي ربو حواي هورتا جيد كان Soomaalida waxay aad iskaga daweysaa malaariyada. laakiin adduunka kalena wax badan ayuu ku samaystaa, wax badan oo anfacaada ah ay ka sameeyaan. geedkan waxyaalaha aadka loogu yaqaano, aadka loogu jecel yahay waxaa kamid ah white blood cell. dhiigga cad ayuu aad u kordhiyaa. dhiigga cad muxuu taraa haddaad dhahdo dhiigga cad waa difaaca jirkaaga wixii cudur oo dhan waxaa difaaca dhiigga cad. dhiiggaaga cad hadduu yar yahay cudurrada jirkaaga ku dhacay oo dhan si halis ay ku haleeli karaan, dhaqso way ku soo ridan karaan. qofka markuu dhiigga cad white blood cell-kiisa markuu badan yahay, xanuun kastoo soo haleela wuu iska difaaci karaa. dhaqso dhulka ma soo dhacayo. dhaqso qof dhul dhacay oo markaasba finish noqday ma noqonayo qofka. sidaan ognahay dhiigga cad wixii cudur jirkeena soo galo oo dhan dhiigga cad ayaa la dagaalaa. marka hadduu dhiigga cad korinayo oo dhiigga cad uu kobcinayo, viruskan adduunka wareeriyayna inuu la dagaalo shako kuma jiro, maadaama malaariyana aad u daweeyo. dawooyinka malaariyana geedaha laga sameeyo uu lambar 1 ka yahay. meeshan marka waxaan ku haystaa saad u jeedinba, meeshan waxaan ku haystaa 5 shay. waa geedkii geed talaal ama geed khadhaadh ama geed hindi ama English neem lagu dhahaa, neem leaf ayaa lagu dhahaa midkaas. halkan waxaan ku haystaa zanjabiilka qoyan ayaan ku haystaa. halkan waxaan ku haystaa toon. halkan waxaan ku haystaa liin dhanaan. halkan waxaan ku haystaa xabasuud. waayahay intan markaa sidee la yeelayaa? tira intee leeg, qiyaas intee leeg ayaa la rabaa in la isticmaalo. zanjabiilka waad fiiqaysaa, waad jarjaraysaa. toonta waad fiiqaysaa, waad jarjaraysaa. liin dhanaanta ma fiiqaysid, sideedaad ku jarjaraysaa, midhaha bis ayaad ka bixinaysaa. neem leaf-kan markaad caleentan soo gurato waad maydhaysaa, iyo xabasuudii midhaha ahayd intaasaa soo qaadanaysaa. xabasuudda midhahana waa inaad soo nadiifisaa, ood soo maydhaa, ood soo qalajisaa. intaas markaad soo qaadato maashinkaad gelinaysaa, waad isku shiidaysaa. maashinka markaad tira qiyaas isleeg ayaad ka dhigaysaa. kan aad uma badinaysid. zanjabiilka iyo liin dhanaanta tira isleeg aad ka dhigaysaa. toonta qiyaas adiga. kanna xabasuudana ilaa 3 qaada camal, qaadada yar. waayahay xabasuudda saad ogtihiinba
rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan ayuu ugaga hadlay ilaa uu ka dhahay moodka mooye wax kasta way daaweysaa. cudur kastoo adduunkan imanaya wuxuu wataa fitnadiisa iyo caqabooyin fara badan iyo mushkilaad badan ayuu wataa, laakiin cudur kasta ilaahay dawadeeda uu soo dejiyey. waafajinta ilaahay baa iska leh. cudur ilaaha naga qabto, hadduu lacala cudur dhacana ilaahana waafajiyo geedihii layskaga daaweyn lahaa. waxaan idin tusayaa marka intan oo laysku shiiday siday noqonayso. waayahay intan aan idiin soo sharaxay oo laysku shiiday ayaa halkan ku jiro. marka kan waxaad gashanaysaa fridge-ka aad gashanaysaa, sababtoo maalin kasta waxaas intaad isku soo diyaarisid ma shiidi kartid. sidaas awgeed hal mar shiido, weel container yar oo saan camal ku shubo. halkan waxaan ku haystaa biyo kulul ayaan ku haystaa meeshan. biyahaas kulul marka waxaan soo qaadayaa kan ayaan hal qaado ka soo qaadayaa. hal qaado markaan ka soo qaado waxaan dhex dhigayaa biyo kulul aan dhex dhigaa oo walaaqayaa. 10 daqiiqo markay ka soo wareegato, haddaad rabtid intaas saas u walaaqdo hal mar isdhaafi soo qantaca. haddaad rabtidna miiro adiga kolba saa jeceshahay, laakiin waxaan ka jecelahay isagoo sidan ah. haddii aad miiratana wax dhib oo leedahay ma laha. intaas yar yar ee geedahaas yar ee kor ka saaran unbaad ka qaadi. markaad ka qaadidna waad iska cabi kartaa. bismillaah dheh, ilaahay dawaha kuugu daro. waayahay yaa cabi kara yaasan cabi karin. gabadha inay uur noqoto rajeynaysa ma cabayso because of geedkan. dadka maxaan ku dhahayay kiniinada uurka la iska kantaroole iyo waxyaalaha ilmaha soo rida ayuu lambarka uu ka yahay. kiniinada ilmaha lagu kantaroolana waa laga sameeyaa. sidaas awgeed gabadhii rabta inay uur rajeynayso ma cabayso, gabadha uur kalena ma cabayso, gabadha nuujinaysana ma cabayso. intaasba ma cabayaan. wixii intaas ka soo hara ilmaha yaryarna ma cabi karaan. ilmaha yaryar qaab caanaha loogu karinayo waan idiin soo gelin doonaa insha Allah. laakiin dadka waaweyn ee caadiga ah ayaa cabaya oo uurna lahayn, naasna nuujinaynin, iyo ilmaha wixii maxaan ku dhahaa 10 sano ka yar intaas ma cabi karaan. maxaa kale dadka kiniinada sida blood pressure-ga cunaa, dadka kiniinada sonkorta cunaa, dadka noocaas oo wadnaha xanuunayaan, dadka dhiigoodu aada khafiifka u yahay, dadkaas waxaa laga rabaa waqtiga kiniinka cunayaan 4 saacadood ka hor inay cabaan. hadda maadaama Ramadaan ku jirno, markii la afuro wax yar kadib waad cabi, markaad suxuurato wax yar kadibna waad cabaysaa. labada waqti aad cabaysaa. dadka laakiin blood pressure iyo sonkorta iyo waxaas qabaan, iyaga waxaa laga rabaa maadaama dawona ay qaadanayaan, tanna dawo badan la isku dardaray ay tahay, 4 saacadood inay u dhaxaysiiyaan dawada iyo biyaha inay cabayaan. intaas waa intaas. gabdhaha uurka leh ama gabdhaha naaska nuujinaya maxaa laga rabaa? cashirka ku xiga ayaan kaga hadli doonaa. aad baad u mahadsantihiin. Ramadaan mubaarak. wixii aan gafay nafteeda iyo shaydaan bay ka ahaadeen, wixii aan asiibayna ilaahay baa mahad iskale. wixii taliyo tusaale ah ama wixii su-aal ah, telefoonka meeshaan kusoo qori doono WhatsApp-ka nagala soo xiriira. waa Mustabshir oo idin leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.